ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay badbaado, maanta waxay u baahan tahay samata bixin, maanta waxay u baahan tahay daweyn. waxay u baahan tahay laga samata bixiyo, laga badbaadiyo, laga daweeyo. waxa qarannimadooda burburiyay, waxa magacii maamuuskii caalamka ay ku lahaayeen tirtiray, waxa midnimadooda tafaraaruq gelinaya. waxaas waa maxay? waxaas waa qabyaalad. qabyaaladu waa cudur. waa waxa maanta siyaasiyiinteena iskugu mashquulsan yihiin. waa waxa midnimada ummadda Soomaaliyeed tafaraaruq gelinaya. waa waxa qoysas badan oo Soomaaliya barakiciyay. waa waxa hooyo badan asiida ay la qaaday dhalinyaro badan wadanka uga taariiftay. waa waxa dhalinyaro badan inoo ka leeatay marka aynu gadaal u fiirino 30 sano ee la soo dhaafay. qabyaaladu dib badan iyo problem badan ay ku haysaa ummadda Soomaaliyeed. waa waxayna ka hortaagan inaynu ka faa'iideysano khayraadka dhulkeena, bado leh, shidaal leh, webiyaal leh. waxaynu la soo bixi lahaynaa khayraadka dhulkeena ku jira. waxaynu la soo bixi lahaynaa waxa hortaagan waa qabyaalad weyn. qabyaaladu waa problem, qabyaaladu waa mushkilad, qabyaaladu waa caqabad, qabyaaladu waa firdhiso, waa dumiso, waa kala cayriso weyn. qabyaaladu maanta waxay gashay siyaasiyiintii, waxay gashay dawladdii, waxay gashay jaamacadihii, waxay gashay ganacsigii. qabyaaladu maanta waxay gashay wadaadadii, waxay gashay macallimiintii, waxay gashay ardaydii. qabyaaladu maanta waxay gashay dariskii, waxay gashay jacaylkii, waxay gashay saaxiibtinimadii. qabyaaladu waxay gashay meeshii ummadda Soomaaliyeed ka dhaqdhaqaaqaysa. qabyaaladu waa cudur ay daawanayaan dhammaan dhaqaadiirta Soomaaliyeed, aqoon-yahanadii iyo culummadii ay daawanayso. qabyaaladu waxay la dagaalaysaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. qabyaaladu waxay burburisaa dowladnimada, waxay dumisaa qarannimada, waxay kala cayraysaa ummadda iyo bulshada qacmaha is haysataa. bal gadaal u fiirsha aawa shirkadaheennii, aawa kambeeniyadeennii, aawa warshadaheennii, aawa warshadihii saxiimadaha samayn jiray, aawa warshadii sonkorta, aawa warshadihii taraqa samayn jiray, aawa warshadihii kalluunka, aawa warshadihii dharka, aawa warshadihii teendhooyinka samayn jiray ee Muqdisho. dhammaan waxaasoo dhan waxaa kala firdhiyey waxa weeye waa qabyaalad. ummaddana waxa wadamo shisheeye u diray waa qabyaalad. qabyaaladu waa cudur ay dhammaan ummadda Soomaaliya ay daawanayso. qabyaaladu waa wax barofesoradeennii ay jaamacado dibadda wax uga dhigayaan, iyagoo dalkeenna iyo dadkeennu way u baahan yihiin. jaamacadeennu u baahan yahay ayay waxay ka dhigayaan jaamacado kale ee wadamo qurbaa. waa waxa dalkeenna ay ummaddii uga caradhay, ay dad badan waddankeena uga tahriibeen. qabyaaladu waa cudur loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay si wada jir uga hortagto. qabyaaladu waa waxa maanta inay ka hortaagan inaynu dowlad rayid ah inaynu dhisano. waa waxa hortaagan one man one vote ka hadda dowladda federaalka iyo dowladaha dowlad goboleedyadu ay wadaan. waxyaabaha hortaagan oo xaqiiqda markaynu wax walba aynu u eegno aynu mala awaalka aynu ka leexanay, waxyaabaha hortaagan waa qabyaalad weyn. qabyaaladu waxay hortaagan tahay horumar badan ee ummadda Soomaaliyeed ay gaari lahayd. qabyaaladu waxay la dagaalaysaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. sidii aan dhawaan aan kula kulnay magaalada Garowe, nin dhalinyaro ah oo dibadda wax ku soo bartay, isla markaasna waddanka aan dhaqaale aan u soo aadinay inuu wuxuu soo bartay ummadda u faa'iideeyo awgeed waddanka u soo aaday. ninkaan dhalinyarada ah muddo ayuu joogay, kadibna wuxuu sheegtay Saambiyaan. maxaa kugu dhacay baa idin rag saaxiibaabay ah inaad Saambiyaan sheegtay? wuxuu yidhaha Saambiya sheegtay waxaa keentay habsaanka ummadda Soomaaliyeed iyo qabyaaladda iyo waxyaabaha meel allaale meeshaan fariisto. kafeteeriga allaale kafeteriga fariisto waxaa lagu hayaa reer qurac iyo reer qasax. anigii ummadda wax u faa'iideynayay, macalinka ahaa, dalka iyo dadka rabay inaan wax taro, waddanka dibaddiisa uga soo kacay dadka ayaa wax gaarsiisid ayaa laygu bilaabay buu yidhi. saa daraaddeed wuxuu yidhi haddaa waddan kala sheegto qof walba wuxuu dhimay Saambiyaan baa tahay, haa horey buu qof walba iga dhaqaaqaya. anna waxaan u imay ahdaafta waddankaan u imay inaan dadka wax u kordhiyo wey. saa la-adligeed waxay la dagaalaysaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ayay la dagaalaysaa. qabyaaladu waa wax loo baahanya maanta ummadda Soomaaliyeed wacyiga ay ku jirto inta ay ka baxdo inay si wada jir uga qayb qaadato. waa wax loo baahan yahay inay dowlad iyo shacab ay u istaagaan sidii qabyaaladda loo cirib tiri lahaa. haddii aynan qabyaaladda aynan la dagaalin
ayna u istaagay ciribtirka qabyaaladda waxaynu gaarayna ma jiro yaa meelo kale la isku mashquulin waxaan jeclaan lahaa inaan leeyahay kumanaan nafood kadibna aan kumanaan magaalo ummadda Soomaaliyeed ay joogto aan u diro aan tago kadibna qof walba oo Soomaaliya meesha uu joogo aan la fariisto la wadaago caqabada ayna ku hayso iyo barobaleeka iyo mushkiladda ay qabyaaladuna ku hayso la wadaago horumarka ay ka hortaagan tahay kadibna aan u diro kumanaan magaalo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku nooshahay kadibna ummaddeeda ay ka dawoodo cudurka qabyaaladda aynu gadaal u fiirino systemka aynu ku socono maanta siyaasiyiinteenu iskuma hayaan dastuur iskuma hayaan xaqiiqda marka la eego la iskuma hayo qaabeyshinka iyo systemkii wax loo wadi lahaa keliya iyagu xataa siyaasiyiinteenu waa dad saaxiib ah waa dad xataa qaarkood ay dhaqaale ahaan uu iskugu jiro marka aynu reality-ga wax walba u fiirino laakiin waxa keliya oo la isku hayaa waa qabyaalada ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay badbaado iyo samata bixin laga badbaadiyo waxa jiritaankooda iyo qarannimadooda la dagaalamay waxaasoo ah qabyaaladda aynu si buuxda aynu uga wada hortagno waxa aan samayn doonaa insha allahu tacaala barnaamijyo aan kaga hortagayno waxa ummaddeena mushkiladda ku ah oo qabyaaladda ah